Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waan islaamay daawadayaal kusoo dhawaada Curis Media. Haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, share dheh si walaalaha wax uga faa'iidaan. Kusoo dhawaada fiidiyogeena maanta oo aan kaga hadlayno cuntooyinka u roon dadka dhiigkarka qaba. Ugu horeyn, waxaan ku bilaabaynaa ka fogow cuntooyinka dufanka badan sida subagga, saliid qumbaha, hilibka cas, farmaajada, cuntooyinka cusbada ku badan tahay iyo macmacaanka. Intaasi waa kuwa aad iska ilaalinaysid si aad u wanaajiso caafimaadkaaga. Maxaa yeelay haddii aad isticmaashid cunto subag ku badan yahay ama cusbada ku badan tahay ama macmacaan ku badan tahay, waxaa siyaadaya kolestaroolka jirkaaga ama dufanka jirkaaga. Taasina waxay keenaysaa in ay caqabad ku timaado habu socodka dhiigaaga. Cuntooyinka kugu wanaagsan marka aad qabto dhiigkarka, waxyaabaha ugu horeeya ee qofku uu qaadanayo waxaa ka mid ah khudaarta kala duwan sida midda cagaaran oo ay ka mid yihiin karootada, bambanooniga, koostada iyo wixii la midka ah. Sidoo kale cuntooyinka dufanka yar sida ansalaatada, bagelka iyo saliidda gabbaldayaha oo cuntada lagu darsado waxay wanaagsan tahay iyadoo dufankeedu waa yaryahay. Sidoo kale wuxuu isticmaalayaa qofka dhiigkarka qaba cuntooyinka shaarka leh ama loo yaqaano hadhuudhka, waxaana ka mid ah boorashka, looska, qamadiga, digirta iyo weliba salbukada. Fiidiyogeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Intayna fiidiyogan mid la mid ah aynu ku kulmayno, waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Dad ku cusub tahay subscribe dheh, share dheh si asxaabtaada wax uga faa'iidaan. Waa mahadsantihiin.